munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay shirkadda daawooyinka soo dejisay ee La Aamin ayaa maanta waxay farmasiyada u soo bandhigtay daawooyinka ay ka midka yihiin macaanku taasoo maanta si ballaaran ay u soo dhaweeyeen farmasiyada magaalada Burco sidii loo heli lahaa daawooyinka macaanka ugu horeyntiiba waxaa munaasabadaasi daafuray maamulaha guud ee shirkadda La Aamin Engineer Mubaarak Cumar Xasan waxaana uu yidhi waxay ku jirtaa shirkadaha ugu waaweyn dalka waxaana ilaahay mahadiya inay shirkadu iyada oo ku bilaabatay farmasi yar oo aad iyo magaalada Burco inay maanta ku jirto shirkadaha waddanka ugu waaweyn ee dalka daawooyinka soo geliya shirkadu waxay leedahay 12 farac ama laamood oo ku yaala Soomaaliland iyo Soomaaliya shirkadu waxay si toos ah daawooyinka uga soo dejisaa in ka badan 16 waddan oo ay ka mid yihiin dalalka Denmark, UK, Hungary, Turkey, Cyprus, Belarus, Iran, Malaysia, Masar, India, Emirates, Australia, Yemen. shirkadu waxay in ka badan 35 shirkadood oo ah certified company-ga oo daawooyinka isku jira baraanka iyo kuwa generiga ay ka keentaa iyadoo ah shirkadu ay soo iibin tahay multinational company ama shirkadaha caalamiga oo ay ka mid yihiin shirkadda Novo Nordisk oo ah shirkadda maanta inoo martida ah seminaarkan ku saabsan macaanka ee farmasiyada jeedinaysa. dhinaca kalena waxaa munaasabadaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin waxaana uu yidhi oo aad u culus waxaan runtii aad u culus xanuunada waddankeena inta ku soo kordhaya maalin walba soo kordhaya aad u fara badan ayuu ka mid yahay caalamka oo dhan marka laga leeyahay xanuunada runtii dee culus buu ka mid yahay dhibta badan ku haya bani aadamka adduunka jooga xanuun aan dee qofku ku dhaco badan ama tagayna chronic weligii noloshiisa laga yaabo inuu la socdo waa xanuun sida la sheegayay dhib badan u geysta wadnada jirka oo meel kasta gaari kara Maxamed Saciid Gaxnuug TV-ga madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Burco.